بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدا إنه كوضا ورقبنا دولة فدرالك الصومالية وحاي كجرت الدعوة إن قد حيسي دلك كينيا ولا لها النهاية وكسب سنة مرن كبضة دعوة دا سكسعتي هيج محكمة عدالة الدونكا وتي دوان أن أوتقني أنا يوفت أنا هجامينيا in aanu horgeyno garnaqsi maxkamadda cadaaladda adduunka ku saabsan in aanu diyaar u nahay in dacwadda la dhageysto 4 November dalka Kenya wafd ballaaran ayaa ka yimid maxkamaddu waxa ay dhageysatay oo gudoomiye ku-xigeenka ama madaxweyne ku-xigeenka maxkamadda adduunka oo kiiskan madaxweynaha maxkamadda ka ah ama gudoomiyaha ka ah Tachu labada dhinac bay isu dhageysatay doodayadu waxa ahayd go'aanka aanu geynina ahaa garnaqsiga hadalka iyo qoraalka ahaa in ay Soomaaliya diyaar u tahay dacwadaas in la dhageysto maqalkeeda 4 bisha oo dooda afeed la gudbinayo bisha November 4teeda Kenya ay codsatay muddo hal sanad ah in loogu daro maxkamadda adduunku markii ay jadwalkeeda eegtay daristay doodii labada dhinac dhageysatay soo jeedimihii waxa ay go'aamisay maanta soo saartay in dacwadda dhageysiga dacwadda maxkamadda adduunka oo ay dhageysanayso ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ay u fadhiisato ay maqasho 8 ilaa 12 bisha June sanadka 2020 muddo kordhintaasi waa kama dambays maxkamadduna qaraar waxa ay ku soo saartay in aan mar dambe la kordhinahaynin hal maalin lagu darahayn dhinacyaduna ay u soo diyaar garoobaan in doodooda afeed ay keenaan 8 soo jeediyaan 8 ilaa 12 bisha June sanadka 2020 waxa kale maxkamaddu cadeysay in soo gudbinihii dokumentiyada iyo qoraalada iyo ku saabsanaa dacwadda badda ay dhamaadeen horena loo soo gudbiyay haddana waxa haray ay tahay in dooda afeed la geeyo oo dhinac walba soo diyaar garoobo 8 June ilaa 12 June sanadka 2020 anagoo haddaan nahay dawladda federaalka Soomaaliya waxa ahaa mowqifkayga 4 November in aan laga kordhinin hase yeeshee waa u hoggaansameynaa go'aanka maxkamadda cadaaladda adduunka diyaar baanuna u nahay in xaqa iyo xuquuqda iyo dhamaanshaha dhuleed iyo badeed ee dawladda Soomaaliya aanu ku medelno dawladda Soomaaliyana hal inch ay ka tanaasulahaynin dacwadeedana aanu gudbinayno garnaqsigeena aanu gudbinayno waqtigaas loo asteeyina diyaar aanu nahay inaanu shacabweynaha Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeedba ku metelno iyadoo mowqifkaygu cad yahay waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh